إن لله وإنا إليه راجعون مدحونا جمهورية Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi isagoo ku hadlay magaciisa ka dawladda ka shacabka Soomaaliland wuxuu dhambaal tacsiyo u diray waxa garadka waayeelka aqoon-yahanka qoyska helada qaraabada asxaabta iyo shacabka Soomaaliland ay ka baxeen Allah naxariistay marxuumiinta kala ah Yaasiin Cali Cabdi Yaasiin Tamaad oo ku geeriyooday xalay taariikhdu ahayd 2 bisha Abriil 2020 caasimadda Soomaaliland Hargeysa waxaana marxuumku soo qabtay xilal kala duwan oo ka mid yahay gudoomiye gobol cabdirasaaq axmed toor oo ku geeriyooday xalay taariikhdu ahayd 2 bisha Abriil 2020 magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco oo mar ka soo noqday maayirka magaaladaasi waxaana madaxweynaha Soomaaliland marxuumiinta ku sifeeyay laba oday oo ka baxay qaranka Soomaaliland door muhiim ah ka soo qaatay nabadeyntii shacabka Soomaaliland ku wada dhaqan iyo dib u dhiskii dalka xilal kala duwan ka soo qabtay qaranka Soomaaliland madaxweynuhu waxa sidoo kale marxuumiinta loogu bariyay naxariistii janno ka waraabiyo wax garadka waayeelka aqoon-yahanka qoyska helada qaraabada iyo asxaabta ciidamada booliska iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxayna samir iyo saadiq oo ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un